waxaan leenahay anagu halkan waxaanu ka koobannahay axmed dhagax iyo 31 Mayda waanu ka koobannahay waxa weeyaan 7 sanadood ay golaha deegaankii ay joogeen imika xilka ay hayeen 7 sanadood ba cashuurta labada degmaba way bixinayeen xaq waxaanu u leenahay cashuurtii 7 sanana laga qaadayay in xaafadda wax loogu qabto wax lagu soo celiyo bakeeri wali kuma qabanin hal bakeeri ayaa ugu yaro xaafadda kuma soo celinin cashuurtii 7 sanana laga qaadayay waa ayaan daro markay arkeen dadkii inaanay cashuur waxba loogu qaban waxa soo socdaana aanay jirin way isxilqaameen lacag bay iska ururiyeen waxay ku dhiseen wadooyin 5 wado maayarkii laga eegayay inuu yiraahdo waa ku mahadsantihiin wuxuu la soo fadhiistay wadooyinkuna waa wadooyin burburaya sheekhay hor socdayna waa shabaab waxay arintaas ka dhigan tahay reer Axmed Dhagax waa shabaab waxaan leenahay hadaba anagu wax xaqaan ku taaganahay wixii Sheekh Mubarak yiri maaha wax isaga ka soo go'ay keligii waa wax dhammaan bulshada reer Axmed Dhagax iyo 31 Mayda ka soo wada go'ay hadeerna waanu kuugu celinaynaa cashuur dambe oo bixinaynaa ma jirto ilaa uu maayarku soo fadhiisto miiska wada hadalka uu nagula xisaabtamo 7 sano cashuurtii uu naga qaadayay wixii uu ku qabtay marka taa la helo ayaa laga wada hadlayaa cashuur bixinta laakiin 7 sano oo cashuur xaafad waxba loogu qaban in la yiraahdo mid kala keeno la iskugu hanjabo taas wax aqliga galaya maaha waa mid aan ku wada socono waa mid aan ku taageersanahay Sheekh Mubarak aan keligii ku ekayn dhammaan labada degmaba waa mid naga go'an arintaas waxa la yahay waa mid golaha iyaga deegaanka xildhibaanadii ka soo baxay aanu ka wada tashaday aanu ku wada socono 100 talaabo inaan ku qiyaasay oo anigu mitiriyay oo iskuulka Cali Jaamac iyo wadada Siinay u dhaxaysa ayuu xidhi 18,000 oo dollar oo kaga qayb qaadanaysan wadada dhiskeeda keena hadda waa 100 mitir taasi dadkii way qancin weyday way ka caroodeen bulshadii xaafadda deganeyd taa bedelkeedii waxay sameeyeen inay wadooyin maxay hayday sabada oo jaygii iyo dhagixii iyo sibirkii intiiba la sameystaan maayirka markuu arkay wax qabadkii halka ka dhacay wuxuu taa halkii uu kaga hambaliyeen la wixii dhaliilana uu qaadan lahaa wuxuu abaalmarinta ka soo celiyay sheekha wadooyinka wadayna waa al-shabaab cid uu shaqeynayna hay'adaha amniga ayaa dabagal sameyn doonta adeerda sheekhu waa sheekhayagii waa sheekhii xaafadda qaar hore oo xidhnaabaan maxay hayday ay bulshadanu ka gaabiyeen oo maanta la oran karaa taasaa sababtay inuu yiraahdo maxay hayday hay'adaha ammaanka baadhaya annagu waxaan leenahay sheekhu waa sheekhii xaafadda cid baadhaysa daayo horumarkan xaafaddu bilowdayna waanu wadaynaa maayirkana taa bulshada bedelkeeda waxaanu tusaynaa in wixii uu qaban lahaa ay bulshadu qabsanayso laakiin waxa baadhis iyo odhad iyo dabagal u baahan maayirka qarankan uu soo doortay ee caasimadan Hargeysa matala ee dabeetana maxay hayday hantidii ummadda intuu lunsaday cid ka daba tag weydaba oo dhad u baahan dadkii oo iska wax u qabsa ku jira markii cashuurtoodii iyo dadkii ay soo doorteen kawsalka u joogay waxba u qaban waayeen in haddana aflagaada loogu daro oo mashaayiikhdii Sheekh Mubarak Muuse oo ah culimada waaweyn ee Soomaaliland kamid ah horumarka ummadda iyo tacliinta diinta islaamka ka shaqeeya ninka aflagaaday runtii waxay sheegaysaa inaanu waxba ka xishoonayn oo ninkaas birmageydaba lahayn qodobkan arintan ka hadlaynaa waxa weeye maadaama 7 sanadood aanu cashuur siinayna kawsalka golaha deegaanka ee Hargeysa 7 sanadoodna waxa la yaalo wax nagaga soo noqday aanay jirin dhibaato mooyaane waxa noo dheer inay wadooyinka cunaan ay wadadii 20 ka ahayd 15 ka dhigaan wadadii 12 ka ahaydna 10 ka dhigaan oo 2 mitir iyo 5 mitir wada walba ka cunaan dhib mooyaane wax dheef oo lagu qabaa ma jiro waxaanan sheegaynaa abud golihii deegaanayna soo maray ugu xumaa ee ugu waxtarka xumaa ee ugu dhibaatada badnaa ee ugu aqoonta darnaa weeyaan abud intii Soomaaliland jirtay xaqna waxay u leeyahay madaxweynaha qaranku inuu kala diro nimanka waayo waa gofane ku naaxay dhiiga ummadda madaxweynuhu hadduu ummadda u danaynayo 25 ka xubnood ummadda ha ka kala diray dhiiga dadka ku naaxay markay saa tahay cashuurtay noqotay inta golaha deegaanka iyo maayarkaasi aflagaadada iyo kibirka wadaana xaafaddeena wax u qabtaana ka soo horjeedaan wax cashuur aan bixinaynaa ma jirto imkaan ku sheegina haddaan nahay cuqaasha deegaanka wax guri iyo meherad meel aanu cashuur ka bixinaynaa ma jirto haddii miiska wada hadalka iyo sharcigu shaqayn waayo wax kala shaqayn doono maayarka xaraf baad noqon doontaa ma noqonaysid maayarka caasimadda
saasaanu kuu sheegaynaa culimmadoo la aflagaadeeyana dhibaato kalea ka iman doonta adeer 20 hore oo culimaa xidhanoo xaafadda ay macnaha kacdoonka ka jira iyo dhibta ka jirta ciddaa ka badantay haddii maantana aflagaado loogu daro culimmadii kale waaweyneed waxay noqonaysaa taasi kicin bulsho iyo iska hor imaatin waxaan leeyahay maayarku wuxuu ka shaqaynayaa ammaandarru ka shaqaynayaa dadku iska horkeenayaa beelbeel buu isaga horkeenayaa degmadegmo xaafad ayuu isaga horkeenayaa taasna waxaa keentay markuu hantidii ummadoo dhan kelidii akowna u samaystay ee cidiba la hadli weydey dadkaba wuxuu u fahmay inay moobaji yihiin wuxuu doono uu ku samayn karo laakiin waxaannu sheegaynaa annagu hore uma kululaanno yaa oo xadiid baannunay haddaannu laakiin kululaanno adeer ma qabownee dhibaato dambe oo aannu u dulqaadanaynaa ma jirto cashuur dambe oo intaad maayar meeshaa ka tahay aannu bixinaynaana ma jirto xildhibaannada golaha deegaankana waannu ka wada soconnaa arrintaa waynala ogyiinoo inaad dhegay jalaq u siin weydey oo tidhi war xaafaddu waxba loo qaban maayo horta xaggan kalea laga wadayaad alaabtii golaha deegaanku iibsaday ee lagu samaynayay waddooyinkana aad dhigatay xaafaddooda uu dhigtay halkan maxay ahayd abaarso aad dhigatay oo tidhi waddooyinka koodbuur iyo 26 baa lagu samaynayaa way noo sheegeenoo arrintaa waannu ku wada soconnaa wax cashuuraannu ku haynaana maayer ma jiree bal wixii kaleed adigu xal moodo noola kaalay diyaar baannu kuune fiilbaaggii ka soo yeedhay solteeko oo aanan anigu aqoonsanayn baynu maayar hargeysa u yihi axmed dhagax maayar calicululaeraabay leedahay malaa warbuu mahay hargeysaba malaa ma oge sheekh mukhtaarna sheekh mabaarigna waa nin wadaada culimmadu ixtiraam bay mudanta axmed dhagax waxaad ka doonaysa male axmed dhagax taariikhdii halgankee leedahay ilaa ingiriiskiibuu faarax nuur kaga hadlayey ilaa halgankii asanam intaba axmed dhagax taariikh wanaagsan bay ku leedaho baaldahaba dadkii loo dagaalamay adiga iyo kuwa la midkaa ayay ahaayeen maanta adeerkaabaa malaa waxaan ku yidhi dadka ku dhexe muuse biixina madaxtooyadii xaafaddiisii buu raray somalilan maaha maanta waxoo la wada leeyay sidaa carra u tallaaday golaha deegaanka nagaga jira konsalkana waannu isku aragnay waannu ka wada shirnay talaannu arrinkan aannu kaga hadlayno inaanaan cashuur bixin waa tala aannu soo wada goosannay juun ku dhismeeye reer axmed dhagax lacagtii laga ururiyo kontributionka annagu mayar baannu doorannay kontributionkayaga waannu iska ururinaynaa wixii cashuur aannu iska ururin karno danaha ayagaannu kaga tashanaynaa serviskay dawladdu noo qabanaysa aba yaraatee waxaannu ka hellaaba ma jirto argagixisaduna maaha cid wax lagu soo taargedgareeyo ilaahay wuxuu aayad qur'aana ku leeyahy hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma sinna qof wax yaqaaniyo qof aan waxba aqoonin haddaad intaad khamriga cabbaysay ayuu isagu qur-aanka ku jira malcaamadda qur-aanka wuu soo dadaalay sheekh mubaarak ilaahay raalliha ka ahaado bismillaahi raxmaan raxiim kolley waxa maanta aan isugu soo baxnay waxa weeyaan dareen taagan annagoo ah cuqaashii dhallinyartii aqoon-yahankii iyo dhammaan waxgaradkii degmada axmed dhagax iyo kobiis dukumey waxaannu baaq dheer u diraynaa inanka maayarka u ah xaafadda xaraf ayaannu baaq dheer u diraynaa oo aflagaada cad oon geeddan loogu soo gaban u geystay sheekh ka mid ah culimmada ugu qaalisan somalilan guud ahaan aan idhaahdo sheekh mubaarak muuse khayr allaha siiya waxaanu leenahay sheekh mubaarak muuse hadalkii uu ku hadlay iyo horumarkii xaafadda faarax nuur ee degmada axmed dhagax ay ku tallaabsatay xagga waddooyinka oo uu kasooltay kaba gaabiyey isagu amaan buu ku lahaa annana waannu kula soconnaa afkaa uu sheekhu ku hadlayey iyo horumarka xaafadda ka socda dhammaan waannu ka simannay hadday xildhibaanno noqoto hadday siyaasi noqoto haddii ay mashaayikh noqoto hadday cuqaal noqoto dhammaan xaafaddu waa horumar ay u soo jeesatay cashuur ay bixinayso oo dambena ma jirta maayar hanugu riyoon argagixisa haddii la doonaya in adiga argagixisaa in adiga hay-adaha qaranku ay ku baadhaan ayaa iyana waajibaa kaagana hadhi mayna hadalkaad sheekha ku tiri wasalaamu calaykum maalka maanta waxaan isugu nimi inaannu ka dareen celinno kelmadihii aadka u liitay ee ka soo yeedhay maayar soltelco maayarka waxaan leeyahay maayar haddii aannu 6 sannadood kaa xishoonnay oo cashuurtii degmooyinkayga aan
nalagu soo celin 1% aan nalagu soo celin aanu kaa xishoonnay oo aanu bulshadeedii intay isku tagtay ay cashuurtoodii lacagtoodii waliba iyagoo cashuurtiina bixiyay lacagtoodii isku urursadeen ay wadooyin dhisteen waxay ahayd inaad ammaanto ammaan bay kaa mudnaayeen laakiin kaamay mudnayn inaad aflagaada iyo shaambad jeebka yar intaad kala soo baxdo aad ku shaambadayso waxaanay ahayn horta marnaba kaamay giin laakiin taa waxaan ka leeyahay wax cashuura oo dambe oo degmadan aad ugu soo hagaagaysaa ma jirto bulshadan degmooyinka koobista Kenya Axmed Dhagax waxay ka wada socdaan oo ay ku midaysan yihiin in aanay cashuur dambe dawladda hoose aanay ka qaadin waayo sababtoo ah 6 sano ee u dambeysay hal wada oo maanta ay sheegaysa dawladda hoose oo ay ka dhistay degmadan ma jirto hal wada jirta wadadaana marka aad madaxweynaha Muuse Bixi aad u doonaysay codka ay wada yaro campaign halka wadada aadan horteeda marta ayaa taa ugu daadatay Jay Stibid adoo waliba cod ugu raadinayay madaxweynaha mid aanu ka yeelin maaha culimaduna waa culimadayadii sheekhaana waanu kula soconnaa wax kasta oo horumarka xaafadda oo wado inta iyo in ka badan oo dhisana cid dambe wax ka weydiinaysa ma jirto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalka xun ee ka soo yeedhay maayarka Hargeysa sheekha uu ku sheegay argagixisada sheekhu waa sheekhi xaafadda waa sheekh Mubaarak annagu culimada xaafadaha kale caaymayno waxna ka sheegi mayno laakiin adigu waxaad maayarkii ugu liitay Somaliland Solteeko war xashiishkaad ka guurka laalay suuqa Hargeysa oo ku qurmay wadooyinkii baa dayacan